magaalada Hargeysa muddooyinka dambe waxa ka dhacay falal lagu xaday gawaarida dadka baabuurta xaday oo qaar kamid ah ciidamada booliisku ay soo qabteen waxay haystaan furayaal gaari kasta lagu kicin karo taasi oo sahashay in baabuur kasta oo meel dayacan yaalaba ay ka haystaan wariyaha BBC-da Sadiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan nooga soo diray Hargeysa in ka badan 10 gaari ayaa Hargeysa laga xaday sanadkan sida booliisku ay sheegeen qaar kamid ah gawaarida waxa laga ka haystay guriyo hortooda oo dadkii lahaa ay dhigteen Abiib Iimaan 4 maalmood ayuu raadinayay ugu dambeynse gaarigiisii iyo qofkii xadayba waa la soo qabtay akhiran maalintii ciid ahayd oo 4 maalmood soo dhameysay maqay ayaa waxa la soo helay oo ay shaqaalihii idaacadda TV-ga soo heleen gaariga magaalada la iska dhex wato oo 3 inan oo dhalinyar ah oo laga soo kireeyay ay wataan tacajiibka waxa weeye ninkii gaariga xaday deeyad laabo noqday lambaradii ka bedelay turuskii dambe uu ka tuuray nooc kale oo kaysay wixii dhex yaaleen oo uu ka saaray dadna inama yar caruura ayuu ka soo kireeyay gaarigan ayaa kamid ah kuwii xaday waxa uu ka galay togan biyaha ayaana ilaa iyo halkan keenay ragga lagu tuhmayo inay xadeen ayaa la qabtay burburka inta la gaariga waxa soo gaarsiiyay daadka oo ka soo qaaday meel 2 kiiloomitir u jirta halkaasi oo ahayd halkii ay dhalinyarada la soo baxsatay ay kaga tageen markii uu ciidda uu ka galay mulkiilaha gaariga leena waxa uu sheegay inaanu imika faa'iido dambe gaarigu lahayn oo uu burbur badan soo gaaray haddaba boolisku maxay ka qabteen xatooyadan gawaarida ee magaalada Hargeysa ku soo badanaysa tugada way dhacdaa dawladda qorshe ka dhacdaa laakiin waxa taala meesha maxaa laga qabtay waxaan ku sheegayaa tugada sheegaysa baabuurta la xaday way jirtaa dhalinyaradu way xadaan laakiin ciidanka booliisku way soo qabtaan imika ilaa imika waxa xiran koob qof oo u xiran baabuurta ay xadeen hadii la ka dhigana waxa la horgeyn doonaa maxkamadda xeelanta awood dawlad dambigaas ay galeen inkasta oo aanay jirin digniin boolisku uu soo saaray oo la xiriidha xatooyadan haddana waxa ay warwar ku abuurtay dadka gawaarida leh waxaana jira dad badan oo aan helin meel ay dhigtaan baabuurta oo loogu ilaaliyo Sadiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa